aad noqoto qof guulaysta nolosha macnaheedu waa in aad ku guulaysataa dhammaan inta ugu badan hadafyada waaweyn ilaa aad noqoto mid dhab ahaan ugu qanacsan noloshiisa. Sababta dadka badankoodu aan weligooda guulo u gaarin waa iyagoo fikrado qaldan ka aamina guusha, fikradahaas oo ka hor istaagaya inay qaadaan wadada saxda ah. Muuqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa furayaasha lagu gaaro guusha, kuwaas oo qof kasta u saamixi doona inuu gaaro hadafyadiisa oo uu noqdo mid guulo gaara haddii uu rabo. 5 sirood oo aad ku gaari karto hadaf kasta oo aad leedahay. 1. Tirada isku daygaaga. Carruurtu waxay bartaan sida shay ama walax si caadi ah loogu qabto kadib markay shayga u qabtaan siyaabaha qaldan oo dhan. Mar kasta oo ilmuhu walaxda u qabto si qaldan, waxay ka dhacdaa gacmihiisa, waxaana wax cusub ka bartaa sida loo qabanayo walaxda. Kadib markii uu isku dayo badan oo ku filan uu sameeyo, ilmuhu wuxuu bartaa sida shayga sida saxda ah loogu qabanayo. Tan waxaa la mid ah hab kasta oo wax lagu barto iyo guul kasta oo la gaaro. Haddii aad rabto in aad guul gaarto, waa in aad ku talagashaa in aad marar badan guul dareysato. Isbedbeddel samee. Markaad guul dareysato, isbedbeddel samee oo beddel xeeladii iyo habkii hore aad raacisay. Isku day wax cusub ama habkii hore aad wax isku dayaysay beddel. Isku day inaad ogaato sababta aad u guul dareysatay si aad u hagaajiso wixii kaa qaldamay isku daygaaga xiga. Mar kasta oo aad guul dareysato, waxaad ogaan doontaa wax cusub oo kaa hortaagnaa in aad guulaysato. Kadib markaad tiro kugu filan guul dareysato, ugu dambeyntii ma jiri doono wax kaa hor istaagaya wadada guusha. 100% aamin in aad gaarayso hadafyadaada. Ninkii laambad hindisay ee Thomas Edison ayaa waxaa la weydiiyey sidii uu u maareeyay inuu 1000 jeer isku dayo inuu laambad hindiso, isagoo mar kasta guul dareysanaya haddana aan rajo dhigin, isagoo qof kastaaba arkaa ka maadsanaya. Wuxuuna yiri, mar kasta oo qof igu yiri waad ku fashilantay samaynta laambadan, waxaan ugu jawaabi jiray kuma fashilmin, balse waxaan ogaaday dariiqo kale oo aan lagu samayn karin laambadan. Sidaa daraadeed, Thomas Edison wuxuu 100% hubay inuu guulaysanayo, waxaanu fahmay inay ka xigaan oo kaliya waqti iyo isku dayo. Baro sababta ka dambeysa guuldaradaada. Inta badan dadka aan guulaha gaarin waxay dareemaan caawinaad la'aan, taasina badanaa waxa ugu wacan sababtoo ah ma garanayaan waxay sameeyaan si ay u guulaystaan oo u gaaraan hadafyadooda. Kadib dhowrka guuldarro ee ugu horeeya ama guuldarrada koowaadba way niyad jabaan xaggii ay ka baran lahaayeen sababta ka dambeysa guuldaradooda. Mar kasta oo aad guul dareysato, baro wixii kaa qaldamay, baro sida loo weydiiyo dadka khibrada ah waxa sabab u ah guuldaradaada. Sidoo kale baro sida xal loogu raadiyo internetka. Hadalkoo gaaban waa in aad barataa sida aad xal ugu heli lahayd waxa kaa hortaagan guusha. Haddii kale weligaa guul gaari